waayahay mahadsanid xasan yare dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeennii xiisaha badnaa ee xulashada toddobaadka raadiyo qorahay codka shacabka dulman oo aan maanta ku soo qaadan doono qaybtii labaad ee qormadeennii murugada iyo xanuunka badnayd ee qadiyadaada hooyo ku difaac qalinkaaga. qormadan la magac baxday qadiyadaada ku difaac qalinkaaga oo uu qoray wariye daljirkayd waxaan dhegaystayaal qaybteeda labaad ku soo qaadan doonaa xaaladda gabdhaha xabsiga jeel ogaadeen ku dhex umula iyo marxaladaha ay inta badan maraan. haddaba aynu ku bilowno umulaha jeel ogaadeene. sida la wada ogsoon yahay waxaa jeel ogaadeen loo taxaabaa shacabka Soomaalida ogaadeen iyo qaybihiisa kala duwan, waxaana ka mid ah haween iyagoo xaamilo ah nasiibkoodu noqdo in ay jeel galaan. dhegaysta sida caadiga haweenku marka ay uurka leeyihiin waxay u nugul yihiin xanuunada, waxaa la siiyaa tallaalada lagama maarmaanka ah, waxaana laga ilaaliyaa in ay gaajoodaan si uu ilmaha caloosha ku jira u noqdo midka caafimaad qaba dhan walba. hooyadu marka ay xaamilo tahay waxaa lala socdaa xaaladeeda caafimaad tan iyo intay ka umulayso, waxaana marka lagu arka sansaan fooleed loola cararaa hadba goobta caafimaad ugu dhow, haddii kale waxaa salliga loo soo agdhigaa umulisa muddo badan haween ka soo umulin jirtay oo arrintaasi u bisil, taasi oo haddii ay wax dheeriya dareentana dalbata in si degdega gabadha isbitaal loogula cararo si ay u hesho xanaanayn ku habboon. haddaba gabdhihii sidaasi uu umuli jiray marka la keeno xabsiga ciqaabta ee jeel ogaadeen waxay noqdaan laba qaybood. qaybta koowaad waxaa lagu sameeyaa wax walba oo xuquuqdeeda wax lagu yeelayo sida faraxumayn iyo jirdil, waxaana inta la silcinayo ku soo dhintaa ilmihii ay uurka ku siday, halka qaybta soo hadhay ay xabsiga ku sugnaadaan iyagoo aanay jirin wax og xitaa in ay xaamilo tahay, iska dhaaf in la xanaaneeye. gabdhahaas waxaa ku dhaca xanuunada ay keenta nafaqa darrida, waxayna fadhiga ka kici waayaan bilaha ugu dambeeya ee sidkooda ay ku jiraan. waxaa badan in halkaasi loogu soo adeego kaadidana lagaga qaado, iyagoo xaalkoodu sidaas yahay ayaa waxaan loo oggolayn in ay diyaarsadaan sakiin ama makiinad, haddiiba ilaah iyagoo nool uu kala keeno ay ilmaha xuduntiisa isaga jaraan, waxaana lagu sameeyaa baadhitaan isbuuclo ah oo waxyaabahaasi yaryar lagaga baadhayo. waxaa jira haweenay maxaabiista laga dhex qoray looguna talagalay in ay iyadu wax ka umuliso, balse nasiib darro waxaa loo oggol yahay hal sakiin, waxaana laga yaabaa in ay hal habeen 5 gabdhood wada fooshaan. waxaa iska caadiya in halkaasi sakiin 5tii gabdhoodba loo wada adeegsado, taas oo sida ay dhakhaatiirtu noo sheegeen ay halis u yihiin in ay cudurro khatara isugu gudbiyaan. qoraaga qormadan diyaariyey ayaa wuxuu leeyahay waxyaabaha intaan baadhitaanka ku jiray iga yaabiyey waxaa ka mid ahaa in marar badan gabdho jajaban oo dhisan ay haddana fooshii qabato. bal dhegaysta, ilaah baan kugu dhaarshay, waxaad sawirataa gabadh jajaban oo kaadida laga hoorinayo oo haddana foolanaysa. sidee ayay u dihan, sidee ayayse nabarka xanuunkiisa ula tacaali kartaa? su'aalahaasi waxaan jawaabtooda u daynayaa buu yidhi taariikhdu in ay xusto. gabdhahaasi marka ay umulaan si ay xaaladaasi ku mutaanba waxay waayaan wax afka laga saaro iyo wax lagu habo ilmaha yar ee jeelka ku dhex dhashay, waxaana la ii xaqiijiyey buu yidhi dhimashada ku timaada umulaha jeel ogaadeen ku dhalay in ay badankood sababtay gaajo iyo silac. marka ay weydo umushu waxay afkeeda geliso ilmuhuna uu ka waayo wax uu ka nuugo, ileen waa qof iyadiiba naftu hayse.
iyadoo sidaas haddana ma helaan wax naxariisa waxayna gabdhahaasi ka mid yihiin dadka isfashiliya la yidhaahdo ee gamgamaha bannaanka lagu fadhiisiiyo ama la su'aalayo boqolka su'aalood ee dhaxalka gumaysiga ah. waxaa intaas u sii dheer buu yidhi haddii si xaq darro ah loo eedeeyo waxay mudanayaan ciqaab dheeri ah sida in la dhaho gurguuro maanto idil barxadda iyo in hadday habeen tahay biyo aad u qabow lagu hafiyo isla markaasina ay qaar badan gariir naftu uga baxdo ileen waa ruux ay horay u dhammaatay awooddiisii. dhegaystayaal intaasi ayaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii xulashada toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaybtii labaad ee qormadii murugada badnayd ee qadiyadaada hooye ku difaac qalinkaaga taasi oo uu qoray wariye daljirkayd. inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa nuuro idinla sidaas iyo nabadgelyo.